Saynisyahanadu waxay cabbireen garaaca wadnaha magnetiga ee atomka wakhtiga dhabta ah. Garaaca wadnaha magnetiga ee atomku marka uu u kala gooshayo xaaladaha quantum ayaa markii ugu horeysay si toos ah loo cabbiray shaybaar. Saynisyahanadu waxay adeegteen mikroskobeka qodista dusha scanning tunneling microscope si ay ula socdaan elektaroonada dhaqdhaqaaqooda, kuwaas oo u socday si waafaqsan nukleeyaska atomka titanium 49. Tani waxay u suurtagelisay inay qiyaasaan muddada uu socdo garaaca magnetiga ee nukleeyaska isagoo gooni loo eegayo. Haddii aad rabto warbixintan oo kale fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Helitaanadani ayay ku yiraahdeen warqadooda cilmiyeed waxay bixiyaan aragti heer atom ah oo ku saabsan dabeecadda nasashada wareegga nukleeyarka, waxayna muhiim u yihiin horumarinta barnaamijyada qubityada ee atomyada laga dhiso. Spin waa eray ay adeegsadaan saynisyahanadu si ay u sharxaan nooc gaar ah oo quantum ah oo ka mid ah angular momentum. Spinku wuxuu muhiim u yahay dabeecadda magnetiyada, wuxuuna inta badan saldhig u yahay kombuyuutarada quantumka, halkaas oo uu u shaqeeyo sidii xogta bit oo loo yaqaan qubit. Qaybo yaryar badan oo subatomi ah ayaa ku wareegaya nukleeyaska atomka, kuwaas oo dhammaantood wax ku biiriya spinka guud. Beddelka iskudhafka spinskaas wuxuu si fudud uga falceliyaa deegaanka ku hareeraysan atomka. Haddii la ogaado astaamaha xaaladdan spinka guud ka hor inta deegaanka dibadda ahi uusan wax ka beddelin, injineeradu waxay heli karaan nooc cusub oo qubit ah. Saynisyahano waxay arkayaan garaaca wakhtiga dhabta ah ee wadnaha magnetiga ee atomka. Sawir sixel muujinta isbeddelka spinka nukleeyarka. In la daawado spinka nukleeyarka adigoon wax ka beddelin waa caqabadda ugu weyn. Sidaas awgeed, koox uu hogaaminayo Eckhart Stolte iyo Jinwon Lee oo ka tirsan Jaamacadda Teknolojiyadda Delft, Netherlands, ayaa go'aansaday inay isticmaalaan dhaqanka elektaroonada si ay u noqdaan wakiil muujinaya nukleeyarka. Sannado ka hor, cilmi baarayaashu waxay ogaadeen in waxa loo yaqaan hyperfine interaction ee u dhexeeya elektaroonka iyo nukleeyarka laga faa'iidaysan karo si loo eego dhaqanka magnetiga, iyada oo aan si toos ah loo faragelin. Fikradda guud ayaa horay loo tijaabiyey sannado ka hor, iyadoo la adeegsanayo hyperfine interactionka, ayuu yiri Prof. Sander Otte oo ka tirsan Jaamacadda Delft. Laakiin cabbiradii hore aad bay u gaabiyeen si ay u qabtaan dhaqaaqa spinka nukleeyarka wakhtiga. Si ay tan uga gudbaan, saynisyahanadu waxay soo saareen hab cabbir dhif iyo joogto leh pulsed measurement system. Mikroskobeku wuxuu cabbiraa atomka iyadoo lagu sameeyo dhifafyo gagaaban oo isdaba joog ah, halkii uu noqon lahaa cabbir soconaya oo joogto ah. Waxay u doorteen isotobeka dabiiciga ah ee titanium 49, kaasoo caan ku ah cilmi baarista nukleeyarka sababtoo ah waxa uu leeyahay dabeecado magnetic oo xiiso leh iyo spin xooggan oo saynisyahanadu si fudud u maamuli karaan. Habkooda cusub, Stolte iyo Lee waxay si wakhtiga dhabta ah ugu arkeen isbeddelka spinka nukleeyarka oo ka muuqda kombuyuutarkooda. Waxay go'aamiyeen in kala go'a xaaladaha quantum uu dhaco qiyaastii 5 ilbidhiqsi kasta mar, taas oo ay cabbiri karaan iyagoo ka dheereeya oscillationka nukleeyarka. Waxaan awownay inaan muujino in isbeddelkani uu u dhigmaayo spinka nukleeyarka oo ka boodaya hal xaalad quantum una gudbaya mid kale, kadibna ku soo noqda, ayuu yidhi Stolte. Tallaabada ugu horeysa ee daahfur cusub waa awoodda cabbirkiisa, taas ayaana hadda noo suurto gashay. Cilmi baaristan waxaa lagu daabacay Nature Communications.